magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusiyay maalinta biyaha oo markaasi lagu xuso dunida oo idil waxaana soo qaabqaamisay wasaaradda biyaha iyo tamarta waxa warbixinta magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayna Maxamed Jawhar 22 Maarso sanad waliba waxaa dunida laga xusaa maalinta biyaha adduunka maanta ayaa waxaa laga xusay magaalada Muqdisho munaasabadan maalinta biyaha adduunka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda dawladda oo ay ka mid yihiin xildhibaano labada aqal ah wasiiro xukuumadda federaalka Soomaaliya fanaaniin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo meesha lagu soo bandhigay waxyaabo ka turjumaya baahida loo qabo biyaha sidoo kale fanaaniintii ka soo qayb galay halkaasi ayaa ku soo bandhigay heeso ku aadan wacyigelinta biyaha ugu horeyn ayaa waxa munaasabada ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha mudane injineer Cabdiwaaxid oo ayaa faahfaahiyay ujeedada munaasabadan waa maalin loo asteeyay maalinka biyaha adduunka arrinka kane wuxuu yimid asalkiisii wuxuu ahaa 1992kii markii lagu kulmay Rio de Janeiro ee dalka Brazil kulankaasi oo looga hadlayay environmentiga ayaa waxaa la keenay ajandihiisii 21aad ayaa waxa uu ahaa in la soo jeediyay in biyaha maalin loo asteeyo sidoo kale waxa goobta ka hadlay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyagoo wasaaradda ku amaanay dadaalka ay wada ee ku aadan sidii loo heli lahaa biyo nadiif ah saad ogtihiin adduunyada waxaa la sheegaa 71 ilaa 72 boqolkiiba inay yihiin dhulkan inuu biyo yahay ayaa la sheegaa laakiin haddana waxaa ilaa 47 boqolkiiba halay Soomaalidu biyo ma heli karaan oo biyo ma haystaan waxaan maleynayaa ka badan inaan heli karin biyaha wali marka la fiiriyo meelaha baadiyaha iyo dhulka fofo saasay tahay haddana waxaa la yiraahdaa meelaha magaalooyinka laftigooda biyo nadiif lagama helo inta badan dadka iska wadaaf barakacayaasha ah ee magaalooyinka kusoo barakacay dadka baadiyaha jooga dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa arrin dhammaantood saameysay biyo la'aanta taariikhda adduunka waxay cadeynaysaa in dhalashada iyo burburka ilbaxnimada inay tahay mid la xiriirta isbedelada ku yimaada helitaanka biyaha caafimaad ahaan waa la wada ogsoon yahay biyuhu inay nafaqo u yihiin 65% jirka qofka bini'aadamka ah intaasoo dhan isku soo duuduub maanta oo taariikhda 22 bisha Maarso maalin kasta adduunku waa aqoonsaday in la xuso sanadkanna halku dhig looga dhigay qof kasta laga matagayo ugu dambeyn ayaa waxa munaasabada soo xiray wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Usmaan Libaax Ibraahim asagoo sheegay inay sii wadi doonaan dadaalada ku aadan sidii loo heli lahaa biyo nadiif ah labadii sano aan soo dhaafnay waxaan soo qabanay miyiga fog baadiyaha ayaa waxaan 26 eel ayaan soo dayactirnay 22 eelna waa soo qodnay oo wasaaradda ay qoday wasaaraddu waxaa u qorshaysan maanta ay sheegaysaa sanadkan 2019 in 100 eel ay qodayso oo ay ka qodayso miyiga fog in biyogelin ay ku samaynayso magaalooyinka ay ugu horeeyaan Muqdisho iyo Baydhabo iyo Kismaayo haddii Ilaahay yiraahdo Maxamed Jawhar warbaahinta dawlad goboleedka Soomaaliyeed Jubbaland magaalada Muqdisho